لما تنسحب الأد باين سلامي ما أنت وحارة أنا إسبابدي كسمية ديب سيك يا تشات جي بي تي صاد الله صعدتها من نيوز كمان قدام بي وحا قبصدي شركة تشاينا اللي قال لي أساس أبليكيشن لو يقرأ ديب سيك أو AI موديل تدو شقين تشات جي بي تي مركا وحارة أنا إسبابدي تشات جي بي تي يصدق كلا الشركة اللي قال لي دالك تشاينا جود أنا سحب رسالة الله صعدتها من التكنولوجيا وحا كصعد ترتن أدو حقن مركي نسفيريا دنك AI ذا باي تاش وحلو يقرأ يصدق كلا ساينسكا سحب رسالة الله صعدتها الدولة الأمريكية وحي كم من نوع تشاينا إن لقي إيبيو وحيلا كو سابسن AI ذا يتشبس كلو أديكسن كر إن لقو ديفلو كريا أما لقو ترين كريا AI مودلز قال أهان شركة انفيديا وعنسن بروسيسور كان لو يقان جي بي يو كنا سو صارته وحي كم من نوع إن شينيز كان لقي إيبيو تاسع كيتا مركن لبستنا بقى قدام بيس أو قرصن جرين الدولة أمريكان كتكنولوجيا أيضا تاجن هذانا تشاينيز كساحب يالا قطب دي مدحونا ترامب أيضا صعدته مركو حاول لو ريجي أقل كعد مركو قلي بيكو آدين برنامج كان أو سبرايز أو قديم سو كلا ساحب يالا فيديو هدي أداوتان مدحونا ترامب وحليه waxaa helnay wake up call ama in loo digo kale orin saaxiib dalka Mareykanka iyo madaxweynaha ka muuqata cabsi ku saabsan in la soo gaaro isku meel la joogo video wax daawo. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win because we have the greatest scientists in the world. So kala saaxiib madaxweynaha Mareykanka wuxuu ballan qaaday in $50 bilyan lagu horumarin doono AI infrastructure ka liba intii soo bixin application kan bay ahayd qodbadiis oo reeyay ku jiray mataqaan oo ku sheegay markuu aqalka cad la wareegay halka saaxiib dalka China ee dhaheen $140 bilyan baa anagana ku qarash gareyn doona AI infrastructure marka waa dareemi ka farq u dhaxayo $500 bilyan iyo $140 milyan marka Mareykanka wuxuu ku bixin dhaqaale aad u sabab inkastoo saaxiib madaxweynaha Trump uu sheegay lacagta 500 in $100 bilyan laga qaadi doono shirkadaha ugu caansan $100 bilyan صاحب الأول هو جان كتكنولوجيا وحقه هي ذلك مرجع أهم تضرب شركة بقويسة شركة اللي يقان ميتا مايكروسوفت انفيديا أبل تسلا أمازون ألفابت تضرب الشركة ده مرجع هو جان كهي تكنولوجيا الميدا متقن اللي يقان أيضا لكن هذا صاحب الواحد صباح الشركة ده اللي يقان ديبسيك مرجع واحد واحد يرهرت إن دول استاي ديبسيك أنت نوجد بين إسبر برنيجا ديبسيك تشات جي بي تي صاحب يلا الشركة ده ديفلوبرز أبلكيشن كديبسيك كنت واحد على هاي فلاير بالله ذلك تشينا اللي قال لي وحيلا مرجع عجيب كدي واحد الشركة تشاينيزكا كلي 6 مليون bay ku develop gareeyeen ama ku train gareeyeen AI modelkan halka ChatGPT oo dhagiisana lagu train gareeyay $100 milyan markii noqoto development iyo maintenance iyo mataqaana horumarinta kale ku baxdana ChatGPT waxa ka badan saaxiib $100 bilyan ka badan tahay marka saaxiib waxyaalaha cajiibka ka dhigay waxa kamid ah waqtiga ku sameeyeen soo kale dhaqaale aad u yar ee ku bixi marka waxaan rabaa inaan horta isbarbardhigo ChatGPT iyo sidoo kale saaxiibayaal DeepSeek qodobkeeda kale saaxiib wuxuu noqonay wax loo yaqaan waa budgetka ama miisaaniyadda سايدين شيء وسحب جال ديبسيك كلي وحا كو بخداي 6 مليون وليبا 6 مليون wax la aweeyay halka ma taqaana ChatGPT lagu develop gareeyay saxabiyaal 100 milyan waxaan tan xada doodiisaas markuu dhahay 500 bilyan baa ku bixiyay markuu maqlay application kan wuxuu yiraahday anagoo lacagta badan ku bixina sidee qoliyahan lacagta ay ku bixiyay laftigiisu wuxuu caanaantay shirkadii ay kalbatay laakiin marba waxa aan saxabiyaal chipkan ay isticmaalayaan markasta waxa iska la shirkada Nvidia oo dalka Mareykanka laga leeyahay laakiin waxyaalaha chipka saxabiyaal waxa weeye chipkan ay isticmaalaan waa chip xilli hore kuwa casriga ma ahan hada Nvidia chip casri ah leedahay wartii waxay lacag qaali kaas loo moogay in laga iibiyo qoliyahaas mataqaana Chinese marka chipkii hore Nvidia lahayd bay nimankan ka sameeyay marka waxyaalaha ajiibka waxa weeye sidee chipkii hore uga sameyn karaan AI modelka inta leego ka fiican ba kuweena waxyaalaha isweydiiyeen mataqaana dawladda Mareykanka marka waxa leeyahay hadii Chinese ka helaan hada Nvidia kala mataqaana chipka u dambeeyo casriga hadii ay helaan maxay ka sameyn karaan waa su'aasha la isweydiinayo weeye saaxiib yaal qodobkeena labaad DeepSeek waxyaalaha uga fiican ChatGPT waxa weeye technology-ga isticmaalaan waxay ka dhigeen open source ka dhigeen halka ChatGPT iyo OpenAI ay ka dhigeen closed source marka maxaa laga wadaa open source iyo closed source waxa laga wadaa saxabiyaal open source oo DeepSeek way macnaha technology-ga isticmaaleen qof walba uu heli kara tusaale kale developerska way isticmaali karaan waxa ku dhisan karaan mid lamida DeepSeek way ku dhisan karaan sidoo kale saxabiyaal isla modelka haystaan customization baa ku sameyn kartaa waxba ka bedeli kartaa halka Mareykanka ChatGPT uu yahay closed source oo is ogoleen in mataqaan la isticmaalo macnaha processkiisa la soo maray ku siin mayaan qolyahan Chinese-ka processkiisa la soo maray step by step coding la isticmaalo xisaabta la isticmaalo technology la isticmaalo qoran bay gacanta ka saaraan si open source loo heliyaa oo qof kasta uu daawan kara taas saxabiyaal marka waxa ku farxay wadamada Mareykanka tartan kula jiro sida mataqaana Ruushka Hindiya Iran aad bay runta ugu farxan way technology ayagu mehen gacanna ku mehen way ka qarsaneen marba close bay ahayd qoliyaha Mareykanka laakiin nimankan Chinese-ka DeepSeek open source marka waa qodobka ugu weyn waxa weeye shirkadda aan ka dhigay saaxiib qodobka saddexaad uga fiican yihiin waxa weeye waa time kala yaqaan ama time efficiency waxa loo yaqaan nimanka Chinese-ka application waxa ku sameeyay 2 bilood kaliya bay ku develop gareeyay mashruuca inta
halka waxa weeye qolyahan ChatGPT-na waqti badan ay ku qaadatay inay mashruucan soo saaraan waliba sanado ah inay soo dhibaagareeyaan marka halkaasna saaxiibayaal aad bay u kala duwan yihiin sidoo kale saaxiibayaal qodobka afraad ee uga fiican waxa loo yaqaan waa algorithmka waxa loo yaqaan waxa la leeyahay marka mataqaan DeepSeek waxa weydiisid wuxuu ku siinayaa mataqaan reasoning waxa loo yaqaan sababayn buu ku sameeyaa su'aal kasta sabab buu ku raacinaya uu ku falanqeynaya information badan buu ka siinaya xog badan buu ka siinaya jawaabtan sababta uu ku siiyay buu ku sheegaya halka ChatGPT wax reason uu salayn kaliya information uu ku siinay waxa la yiri marka la develop gareeyay DeepSeek waxa loo develop gareeyay qaybta caafimaadka qaybta lawyerka kala qol kasta waxa la geliyay information ama blog kasta information gara baa la geliyay dhanka caafimaadka siyaasadda waxbarashada arrimaha bulshada adigu inay filiyada kala duwan waa halkaas baa loo diran gareeyay marka taas waxay keenaysaa inuu mas'aasha weydiisto si focus ah oo more deep magaciisa taa DeepSeek baa la oo more deep uu kaaga jawaabo halka saaxiibayaal ChatGPT hal qol wixii dhan la isku keenay marka information guud jirnaa uu mar walba ku siinaya kan laakiin separate way information kiisa dhanka waxa way reasoningka algorithmka mar walba waxa ku fiican baa leeyahay mataqaana saaxiibayaal sidoo kale saaxiibayaal hadii aan fiirino qodobka u dambeeyo pricingka runtii aad buu kala duwan yahay dhanka priceka tusaale kale saaxiibayaal aniga hadda waxaan isticmaalaa ChatGPT waan isticmaalaa qayb waa free ChatGPT kan u yar waa bilash way lacag kamera kalanaad waxa lahaa plus bala ChatGPT plus bala kaas ay isticmaalaa bishii $20 bay iga qaadaan wax badan runtii waa ka helaa kan u qaalisanna waxa la saaxiibayaal pro baa lahaa kaas marka waa 200 way inkastoo ay ku xiran tahay waa laftigiisu si kala qaalisan yahay 200 ka yaraan karaa wuuna ka badnaan karaa ka marka aniga $20 baa isticmaalaa bilkasta 20 ChatGPT iga qaadaan runtii sax shaqo badan oo ku qabsada wax badanna way iga caawiyaan laakiin saaxiibayaal DeepSeek asaga kan 20 u dhigmo oo ChatGPT-giisa waa bilash mid qaali uu leeyahay asaas sida mataqaanaa broker laakiin markasta uu ka jaban marka la fiiriyo enterprise baa loo qos marka DeepSeek adiga si bilaash ku isticmaali kartaa information badan iyo content badan uu ku siin doonaa saaxiibayaal sidoo kale shirkadda Alibaba isbuucan waxa soo saartay application AI model asna cusub oo loo yaqaan Quid 2.5 Max shirkadda Alibaba iskale marka laba application hal mar nimanka waxa Chinese ka isku bil soo daayeen ciyaar ma marka nimanka Chinese ka Alibaba waa shirkad runtii aad u ballaaran waa shirkadda e-commerce dunida ugu weyn marka oo saaxiibayaal B2B ama business to business e-commerce doorta buu leeyahay B2B B2C B2D waxa dhan buu runtii leeyahay B2D baa xataa jiro business to government ala marka waa B2B macnaha macaamiishiisa asaga waa jumlo bas alba jumladu ma khadal banka hada saaxiib tusaale kala diyaat in Amazon ganacsi ka bilowday Amazon kulli waxay ka soo qaataan alaabta waa Alibaba oo jumlada ahaan bay uga soo qaataan marka Alibaba barnaamijkan uu shaqay halka Amazon ay tahay loo yaqaan B2C ama type category e-commerce loo yaqaan business to zoom tusaale kada alaba shay war ka dalban kara sharkaas kala ka dalban kara kamarada in ka halaya ka dalban kara ma gaan waa ka dalban kara laakiin Alibaba kama dalban marka Alibaba waa Alibaba group ala waa shirkad afar bay u kala baxdaa labana waa international labana waa local labada international waxa Alibaba oo jumlada ah iyo adduunka dhan qofka wax ka dalban karo iyo AliExpress oo tafaariiqa dunida dhan wax ka dalban hada AliExpress waxbaan ka dalbadaan halkan lagu kana channel ay kana laakiin laba gudaha baa jirta oo leeyahay mid taboo baa la dhahaa oo dadka Chinese ka local kuma loogu talagalo international ma ahan mid kale magaceeda iga maqan comment iyo soo sheegay marka labadaas laftooda waa jumlad iyo tafaariiq way laakiin waa local labadaana ma taqaanaa waa international way saaxiib ugu dambeeyay waxa la aaminsan yahay dalka gacanta ku dhiga technology AI inuu dunida hogaamin doono marka tartanka halkaas buu ka jiraa aad baa runtii saaxiib la isku dagaalay sidoo kale saaxiib qaarada Yurub oo loo yaqaan qaarada cajuusa ama niman waxa weeye xilli badan soo shaqeeyay dunida caanka ah barnaamijyada ay daawaday bay kasto Faransiiska ay ku taala shirkad yar oo AI still hada waxa la Mareykan baa laga leeyahay marka qaarada Yurub ay barnaamijyada way ka hordaa oo waliba saaxiib sawirka u jeedaan waxa lagu dacaydeynaya mataqaana in cabitaano ay soo saareen qofka su'aal kala cabitaan soo saareen qofka uu meesha aad dib u kula aadaya macnaha wax iska mataqaana loo kala ku mashquulsan yihiin oo aan nafray saaxiib tartanka oo ka dhaxaya waa nimanka Chinese ka iyo ka dhaxaya nimanka Mareykanka